بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده beertan oo ku taala degmada Daynile gobolka Banaadir waa green house xagaas waxa saaran bac qaybtaas waxa saaran shabaq bacda waxa lagu talagalay in kuleelka zaa'idka ah ay maxaan ku yiraahdaa kala yareeso inta loo baahan yahay beerta un baysanaysaa inaha kalena waxa waaye waa ay saaraysaa halkan waxa ku yaala green house dhexdiisa lagu beeray yaanyo ayadaan nooca aad u jeedaan waxa waaye waa noocan loo yaqaan sibirsaanta ama nooca aad ku waaweyn geedahan waa u jeedi kartaan iyaga almost 2 mitir ay gaarayaan marka la fiiriyo dhirkooda waxa lagu hayaa isbaagadan maadaama geedku uu aad u dheer yahay isbaagadan ay calinaysa oo geedka ku laalaaban ilaa halkaa ay ku xiran tahay marka wax lagu waraabinayo waxa la siiyaa drip irrigation qaabka leeyahay ayaa loo waraabiyaa geed kasta meesha ku aadan ayaa biyuhu dis ku leeyihiin mar walba wax la abuurayo wax ugu weyn oo laga fikirayo ayaa waxay tahay maxaan ku iraahdaa waqtiga wax la beerayo iyo abuurka la abuurayo nooca uu yahay hada mesela waxa weeye yani mar kasta abuuradu waxay ku kala duwan ama ay ku kala fiican yihiin xilliga la abuurayo wax soo saarka ayay markaas ku kala duwan oo geed walba inta maxaan ku iraahdaa oo soo saarayo ayaa la qiimeeyaa waxa kale la qiimeeyaa climate ku adkaysan kara mesela hadda geedkan oo kale waa tirinayna inta yaanyo ku saaran haddii dhahno meeshan 5 xabo ka wataa halkan iyana waxa waaye waa 5 xabo kale waa 10 qaybtan nimo intana waa 4 qaybtan iyana imo waa 3 xabo welina koro ka sii wadaa which means halka geed ayaa wuxuu wataa taqriiban 16 mir oo jeedaan ayadana hadda sidoo baxayso aad u weyn badan tahay tankana sidoo kale markasta waxaan dhiirigelinaynaa dadku inay wax beertaan isku tashtaan waxyaabaha dibadda ka yimaada wadanka si aan caadi uga bixi karin waliba waa ka qiimo badan tahay kuwa dibadda laga keeno markasta